maalin kale ayaa ahayd oo uu Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya san u suuragalin inuu kala xakameeyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku sugnaa xarunta golaha shacabka ee Muqdisho. ajandaha kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa ahaa mid ay xildhibaanadu kaga doodi lahaayeen suurtagalnimada in mooshin laga keeno xukuumadda iyo in kale laakiin ma aysan suuragalin. xildhibaanada baarlamaanka ee diidan mooshinka ayaa watay boorar ay ku qornaayeen qof ama qaran. waxa way qof ama qaran xukuumadan waxa loo duminayaa ujeedada ugu weyn wasiir laga qaaday wasaaradda cadaaladda oo la geeyay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa. wasaaraddaas haddii wasiirka la geeyo xanaanada xoolaha xukuumadda waa in la ridaaba leeyahay. waxaan niri marka ama qaran qaado ama qof qaado. waxaan tusaynay baarlamaanka asxaabteena saaxiibadeena kale inay u tanaasulaan qaranka oo ay ka weyn tahay danta qaranka oo ay u dhaarteen ummadda maanta culaadda shabaabka abaaraha barakaca dhibaatooyinka ay haystaan. gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa markii uu soo gaaray xarunta golaha shacabka waxa uu jawiga noqday sidan. xildhibaan Cabdibari Yuusuf Jibriil oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka waramaya waxa ay ku xusheen heesta qaranka Soomaaliya. waxaanu heesta calanka uga jeednay oo aanu tusaynay inaan nahay xildhibaano Soomaaliyeed oo muwaadinimada u istaagay oo ka soo horjeeda mooshinka sharci darrada ah oo hoteelada lagu soo aabelay guryahana lagu ururiyay oo sharcigii baarlamaanka ka baxsan. waxaana ummadda u tusaynaa heesta u qaadnay inaanu u istaagnay dastuurkii badbaadintiisa iyo ummadda Soomaalida oo dhibaataysan meesha wax looga qaban lahaa maalin kasta in la yiraahdo hebel hal la cayrsho lacag ha lagu bixiyo shilimaad ha lagu bixiyo wax la qaadan kara maahan. arrintu waxay taagan tahay qaran iyo shakhsi kee weyn qaranka aanu badbaadino shakhsiyaana u helin. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xildhibaanada qaarkood ay si qalad ah u adeegsadeen heesta qaranka Soomaaliya. waliba kalmad aan aad u jeclahay oo ummadda Soomaaliyeed astaan u ah ay dulan u adeegsadaan aad baan ugu xumahay. Soomaaliya ay tooso oo isku tiirsanaada waxa loo qaadaa ummad qiiraysan waxa loo qaadaa ummad midnimadeeda kaamil ay noqotay. maanta oo ay arkayeen oo gudoonkii baarlamaanka hadalkii ay u diideen inay u qaadaan Soomaaliya toos ay u adeegsadaan erey aad iyo aad u qurux badan inay u adeegsadaan ficil dad lagu garaacay inay ka dhigtaan waa waxaan aad ugu xumahay. waxa la jibiyay xeeroosaadka qodobkiisa labaad. kulanka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii labaad ku soo dhamaaday iyadoo ay xildhibaanadu buuqayaan. waxaana muuqanaya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo xildhibaanada ka dalbanayay inay isdajiyaan si xildhibaanada loogu qeybiyo warqadaha ay ku qoran yihiin arrimaha mooshinka. Aways Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho.